السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaneysaan jimco wanaagsan. waa maalinimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha May sanadka 2026. barnaamijkeena koobaad waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe. qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Pakistan oo sheegay inuu u safri doono dalka Shiinaha si uu Shiinaha ugala hadlo inay kala qayb qaataan waanwaanta iyo wada hadallada uu doonayo inay mar kale isugu yimaadaan miiska Iiraan iyo Mareykanka. haddaba Shiinuhu ma aqbali doonaa mise uu kala shaqayn doonaa Pakistan mise uu ka aamusi doonaa? tafaasiisha iyo waxa laga qoray arrinka barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa. ugu dambeyn NATO oo sheegtay Trump inay ku taageeri doonto furitaanka marinbiyoodka Hormuz. haddaba maxaa kala raaci doona NATO iyo Iiraan? wararkii ugu dambeeyay gaashaanbuurta NATO ka soo baxay ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu haynaa Iiraan oo si kulul u cambaaraysay kadib markii liiska cunaqabataynada dadka reer Lubnaan la saarayay lagu daray safiirka u fadhiya Iiraan magaalada Beirut. haddaba maxaa keenay in safiirka Iiraan la cunaqabateeyo oo lagu daro liiska koox Xisbullah ka tirsan? haddaba tafaasiisha sheekooyinkaas ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. inta aanu ku jirnana wixii akhbaaraad oo cusub ay soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. waa barnaamijkeenii ugu horreeyay. maanta waa jimca mubaarak. taariikhdu waa 22 May 2026. qodobo muhiim ah ayaynu barnaamijka kusoo kordhinaynaa oo dhammaantood ah wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn. haddaba ugu horreyn barnaamijka waxaynu ku furaynaa oonu ku bilaabaynaa arrinta wadaxaajoodka Mareykanka iyo Iiraan oo warar cusub ay kasoo kordheen. haddaba dadaallo xoog leh ayay dowladda Pakistan ku jirtay maalmihii lasoo dhaafay. maray wasiirkeeda arrimaha gudaha u dirto Tahraan, mar taliyaha ciidamada. howlahaasoo dhan waxay ugu jirtaa sidii balwaanwaanta iyo wadaxaajoodka aanu u burburin oo dhinacyadu ay mar kale isugu iman lahaayeen. inkastoo marba marka ka dambaysa la leeyahay in la isfahmo way sii adkaanaysaa kadib markii shalay aayatullaahiga war uu soo saaray uu ku sheegay sidaan halkan idinkaga soo gudbinay inaanay Iiraan marnaba dalkeeda ka qaadaynin uraniumka, halka Mareykanku iyaguna ay xujada koowaad u tahay in uraniumka la bacrimiyey ee nuclearka laga samaynayo in laga qaado Iiraan. haddaba xaaladaas aad ayay u cakirantay, wax walbana waxay noqdeen wax aan kala socon karin. haddaba wuxuu go'aansaday xalay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif ninka la yiraahdo safar degdega inuu berito oo sabti ah ku tago caasimadda waddanka Shiinaha ee Beijing, isagoo halkaa wada hadallo kula qaadan doona madaxda Shiinaha ugu horeeyo madaxweynaha dalkaasi si ay markaa uga wada hadlaan sidii Pakistan loogu kaalmayn lahaa wadaxaajoodka. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. Pakistan wararka ka imanaya waxay sheegayaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu Shiinaha u tagi doono bal sidii ay ugala hadli lahaayeen in la dhameeyo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ninka la yiraahdo Dahir Andrabi ayaa wuxuu sheegay in nabadgelyada laga dhex raadinayo Mareykanka iyo Iiraan ay tahay mas'alad muhiimad gaar ah u leh Pakistan. waxaana uu dhanka kala sheegay in juhdi fara badan ay ku bixinayso dowladda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalkaas. Shiinaha wuxuu taageeri doonaa dadaalada dhexdhexaadinta ee Pakistan ka shaqaynayso kuwaasoo ay iska kaashan doonaan. ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa dhanka kale waxaa la sheegay in booqashadiisa uu beri ku tagi doono waddanka Shiinaha ay markaasi kaga xaajoon doonaan isaga iyo madaxda halkaas arrimo muhiim ah oo ku saabsan sidii arrimahan loo soo afjari lahaa. dhanka kale ra'iisul wasaaraha waxa uu dhanka kale sheegay
inaanay jirin warar laysla dhex marayay muddooyinkan oo markaa ku saabsan in maraykanka uu doonayo in bakistan uu ka qaato inuu isticmaalo qaybo ka mida dhulkeeda si markaasi uu saldhigyo uga samaysto dagaalka uu kula jiro iiraan, taasoo bakistan ay sheegtay inay tahay midaan waxba ka jirin oo bakistan hadda ay u dhaxayso dhinacyada. marka ma aqbali doonaa shiinuhu mise ma aqbali doono waa hawl kale, laakiin shiinaha toos waxaaba uga codsaday arrinkaas oo maaragtay weydiistay in arrimahan iiraan iyo hormus iyo waxaa weydiistay Trump iyo wafdigiisii markii dhowaan ay tageen. laakiin wararka la helay waxay sheegayaan in shiinuhu uu si uga gaabsaday arrinkaas, inkastoo maraykanku ay markii halkaa ay joogeen madaxdiisu ay lahaayeen wuu nagu waafaqay in halkaa la furo, in saas la sameeyo. macluumaad guud oo ku saabsan waa in la furaa hormus, waa in dagaalka la joojiyaa, warar aan ahayn shiinuhu ma soo saarin. marka hadda bakistan sababta ay marka halkaa u tagayso waxay u aragtaa shiinuhu inuu gacan ku siin karo in arrintan wadaxaajoodka la dhammeeyo, maadaama shiinuhu ay aada isugu fiican yihiin iiraan sida la leeyahay. qodobka marka halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijkeena maanta oo jimco ah oo barnaamijkii koowaad aanu kusoo qaadanaynaa wuxuu yahay in muddo ahba Trump wuxuu eedeynayay NATO iyo wadamada Yurub, wuxuu lahaa imaada halkan igala qaybgala sidii aan u furi lahayn marinbiyoodka hormus. haddii aad diidaan, nin walba gurigiisu shidaalyarida iyo dhibaatada dhaqaalaha uu ku dareemi doonaa. nimankiise u adkaysanayeen hadda waxaa muuqata inay isa soo dhiibeen oo ay Trump yidhaahdeen waa kula shaqaynaynaa sidii bal loo furi lahaa hormus. haddaba marka dad badan waxay leeyihiin haddii NATO oo wada socota iyo maraykankooda ay isku dayaan xoog inay ku furaan hormus, maxaa ka dhalan karaa? iiraanse ma u babac dhigi kartaa awoodda gaashaanbuurta NATO? ma iska celin kartaa? marka sheekooyinkaas waa calaamad su-aal weyn. saaxiibada iiraanse ma ku fiirsan doonaan gaashaanbuurtii NATO oo iiraan weeraraysa loogu talagalay inay ruushka iyo shiinaha iyo la dirirto? marka arrinkaa isaguna calaamad su-aal badana saaran. gaashaanbuurta laftirkeedu arrinkaa ma isku wada waafaqi doonaan dalalka ku jira? sidee waxay yihiin? laakiin warar hoose hadda waxaa leeyahay nimankii madaxda u ahaa gaashaanbuurta NATO, xogayaha guud oo kale iyo raggaasu waxay wadaan olole ah in maraykanka lagu taageero sidii loo furi lahaa hormus oo iiraan markan xoog loogu muquunin lahaa. ingiriiska waatay meesha maraakiib geeyeen, faransiiska geeyeen, inta kaloo dhimanna halkaa la geyn doono, macalinka weynna uu horey u joogay. waxaasoo dhan marka inay ta isku aruursadaan meesha ee hal mar iiraan jiiraan oo markaa ay ka saaraan meesha ma dhici kartaa. marka su-aalahaasoo dhan weli jawaab looma hayo. haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyey arrimahan aljaziira ay ka qortay, xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO waxa uu sheegay inay suuragal tahay inay maraykanka ku taageeraan sidii loo furi lahaa marinbiyoodka hormus. haddaba waxaa la sheegay yurubiyanka inay markaasi sheegeen inay suuragal tahay Washington inay markaas siiyaan saldhigyo oo marka ay isticmaasho saldhigyada wadamada Yurub si howlgallada arrinka ku saabsan ay halkaa uga qayb qaataan, iyadoo markii hore dalal badan oo Yuruba ay u diideen maraykanka inuu dalalkooda ka dhigto meel ay ciidamadiisa ku duulaya Iiraan ay saldhigyo ka samaystaan oo ay kaga socdaalaan halkaas. marka waxaa leeyahay dowlado badan oo Yurub ah oo khasaaraha iyo dhibaatada dhaqaale yarida iyo mushkiladda xirnaanshaha hormus uu soo taabtay ayaa hadda doonaya in arrinkan hore loo socodsiiyo oo macnaha maaragtay maraykanka lagu taageero. qaar waxay leeyihiin saldhigyada halkaa ka furo si alla sidii meesha lagu furi lahaa aynu ka wada shaqayno. marka hawshaasaa marka iyaduna socota. iiraan markaa hadda wax cusub oo ay arrinkaa ka soo saartay ma jiraan oo aan ahayn hadda ka hor ay tiri cid kasta oo hormus u soo dhawaata ha iska jirto. marka hawshaasu marka halkaasaa iyaduna abaabulkaasaa socda, howlahaasaa socda. dhanka kale xog xasaasi ah oo warbaahinta maraykanku ay faafiyeen saakay ayaa waxaa lagu ogaaday khasaaraha maraykanka kasoo gaaray dagaalka iiraan
inaanu ahayn mid intii la sheegayay ku eg oo waxay sheegeen inuu ka badan yahay. maraykanka gantaalihiisii waa dhammaadeen. kuwii uu ku difaacayay israa'iil maaragtay ayaa ugu badnaa kuwii saldhigyadiisa uu ku difaacay. fiiri, saldhigyadiisa wadamada carabta ku yaala gantaalihii uu difaaca ugu talagalay intii uu ka riday uu isku difaacayeen carabta iyo intii israa'iil keligeed uu ku difaacay. israa'iil 4 jibaar badanaa lagu leeyahay, haddana waxba uu ka celin waayo, nagtaa laga saaray. marka gantaala yari way jirtaa. midda kale waxaa leeyahay diyaarad maraykanka uu aada u ammaani jiray oo adduunyada cid aan siinayo ma jirta uu lahaa MQ-9 la yidhaahdo, diyaaradaha droniska adduunka ugu khatarsan ka mid a oo $2 milyan keligeed joogta, ayaa 22 xabo lagu qararamsaday dagaalkii Iiraan. marka khasaaraha hadda ayaa lasoo sheegay, laleeyahay intii hore ay inii sheegayeen dowladdu in ka badan ayaa soo ogaanay leeyihiin warbaahinta maraykanka. haddaba markaan tusoo saacadii lasoo dhaafay warar soo baxay waxay sheegayaan in markaa lasoo saaray xajmiga uu la egyahay khasaaraha ciidamada cirka maraykanka kasoo gaaray dagaalkii Iiraan ay la galeen dhowaan. haddaba warbixino lasoo saaray ayaa lagu sheegay in Iiraan ay burburisay in ka badan 20 diyaaradood oo nooca diyaaradaha droniska ee la yiraahdo MQ-9 Reaper. haddaba waxaa la sheegay ciidamada maraykanka in markaasi ay diyaaradahaasi isticmaalayeen. haddaba wakaalada la yiraahdo wararka Bloomberg ee wadanka maraykanka ayaa soo bandhigtay khasaaraha intaa la eg, waxaana ay sheegeen in Pentagonka ay markaasi kasoo ogaadeen in khasaaruhu uu intaa gaarsiisan yahay 20% inta ay sheegeen in ka badan ayaa la sheegayaa hadda in diyaaradihii halkaasi ay ku baaba'een. marka maalin walba xog cusubaa la helayaa. awal waxba nama tarin Iiraan, waxba nagama tarin, waa baabi'inaa la lahaa, laakiin hadda iyagiyaa isa soo kashifay. waxay leeyihiin waxa naloo sheegay wax ka badan khasaaraha meesha yaalla. $2 bilyan meesha ku baxday oo maaragtay maraykanka ku khasaaray. marka ilaan maraykanka waxaa leeyahay waxa uu ugu degdegi layahay Iiraan dagaalkii hore lagu kululeeyay. marka xoogaa waabis iyo qayle iyo waa weerari doonaa iyo dhulkan kula simi doonaa iyo car soo socoyo banaankaasa laysaga booteena, laakiin waa laysbartaa la leeyahay meeshaas. iyaduna wararka cusub ay ka mid tahay. dhanka kale Iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa si kulul u cambaaraysay cunaqabateyn dhowaan wasaaradda maaliyadda maraykanku ay kusoo rogtay shakhsiyaad reer Lubnaan oo Xisbullah la sheegay inay ka tirsan yihiin. hase ahaatee liiska waxay kusoo dareen maraykanka safiirka Iiraan u fadhiya Lubnaan. maxaa ka galay baa Xisbullah isaguna cunaqabateynta ay soo saareen. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay haddaan idin tuso, wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxay sheegtay cunaqabateynta maraykanka uu kusoo rogay Lubnaan inay daliil u tahay maraykanka inuu ku taageersan yahay Israa'iil waxay halkaa ka wado. waxaynu si kulul u cambaareynayna wasaaradda maaliyadda maraykanka cunaqabateynta ay kusoo rogtay safiirka Iiraan ee magaalada Beirut jooga. waxayna sheegeen arrinkaasi inuu qaanuunka caalamiga uu baalmarsan yahay oo ayna tahay wax aan lagu marmarsiyoon karin in safiir dowladeed ay dowlad kale cunaqabateyn saarto. marka sheekadaas maraykan ma qoro, laakiin waa kaas. haddaba wixii kaloo soo kordha waa arki doona. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay, meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeennii ugu horreeyay. maanta barnaamijyada aynu soo gudbin doono waa maalinimo Jimcaha. haddaba qaybtan waxaynu kusoo qaadanaa akhbaaraadka wixii warare soo kordhay. koonfurta Lubnaan wixii kasoo kordhay ayaynu barnaamijka qaybtan ku faahfaahinaynaa. haddaba telefishinka Al-Jazeera ayaa wuxuu leeyahay weeraro kala duwan ayay Israa'iil ku qaaday maanta magaalooyin ku yaala koonfurta Lubnaan, halkaasoo la sheegay in diyaaradaha dagaalku ay si xun u duqeeyeen. marka waxaa dhanka kale la sheegay in Xisbullah iyaguna ay weeraro kaga jawaabeen arrinkaas. dagaalka ka soconaya koonfurta Lubnaan ayaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya. dhinacyada waxay aad isugu isticmaalayaan weerarada dhinaca cirka. Israa'iil waxay isticmaalaysaa diyaaradaheeda casriga ee dagaalka, halka ay isticmaalayso Xisbullah diyaarado daroor ah oo iyaguna ay ku garaacayso goobaha ay fadhiyaan ciidamada.
ciidanka Israa'iil waxaa loo diiday inay lug ahaan u soo socon karaan oo ay ka soo gudbaan dhanka webiga la yiraahdo Litani iyagoo dib u gurasho ku jira marka halkaas iyaduna maartay jugta la isku hayaa wixii ka soo kordho dheeraada barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa akhyaaray barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta Jimcaha waa naga inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale haddii alla idmo waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo